propaganda soo dhageysta ama ku tiro ku teen inagu waxaanu naahnaa xanta freeshka halkan qurbaha marka aynu joogno xan fresh ku haya qofkii wuxuu yahay ma ogid balse laakiin waxaad ka soo qaadaysaa wasladiisa xalaasha wad xaraan ka dhigaysaa dan marka waxaanu u bixinay xanta freeshka saynu wada ognahay farxiyo kaba yaray bariyaan xanta freeshka way ku badan tahay qurbaha siiba Mareykanka iskugu noqo oo dib u soo shaandhe oo bal dadka maanta qabrigaaga gashidaya xasuusan doontaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتوا عنا وناكسن داوديال markasoo dunida daafiyada ka joogtaan waa mar kale kaliib cusub halkaad iga daawanaysan ama aad iga dheeganaysan waa halkan YouTube-ka ku leenahay hodan fashion waa walaashin hodan oo idin la soo dhawaada dhamaantiin waxaan ka codsanayaa bifadlan dad channelkayga ku cusub tahay inaad subscribe ka saartid ruumatida naga mid noqotid si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada aad baad ugu mahadsan tahay. inta kadib waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo walaashay farxiyo kaba yare iyo Saciid BK oo runtii farxiyo kaba yare ku soo dhigtay Saciid BK saynu wada ogeynba maalin ka hor walaalka Saciid BK uu ka fadhiistay fanka sida awadeed wuxuu dadka uu fidiyaan naxariis macnaha dadka wuxuu raada ka soo baxa fanku ma wanaagsana sidan wax la halmaala dad badan qaalilada dad badan buu uu yiraahdaa bay direct ama hawla hadla ama bay social media ba kala hadle uu yiraahdaa fanka ka soo baxa wax wanaagsan maahan khayr baa halkan ku jirta ee halkan soo gala يعني نحرس بو فيديا وراهدا walaalada iyo dadkii aan waqtiga kaga yimi fanka iyo suugaanta ayaan halkan ugu yeeray nimcadan aan haysano runtii farxiyo kaba yarana waa dadka ayaamahan ama bariyahan dambe aad ugu faradhaa dheer hadii noqoto xagga BK waxyaabo badan ay ka sheegayso dhowr jeer oo kaliib hore waan ka arkay laakiin wax reaction kama bixin saacaw bar waxa aan rabaa inaan ka bixiyo reaction kaliib ay soo duubtay kaliibkaas oo ay leedahay محمد سعيد BK wuxuu qaataa lacag ama dad gooniya ayaa lacag siiya horta runtii waa wax ayaan daraa diinteena islaamka ee macaan markuu qofku yiraahdo ilaaha tartiiban wuxuu daayay propagandada iyo waxa meelaha laga leeyahay inaanu qofka bilaadanka soo qaadanin way jirtaa dacaayadu way iska jirtaa oo dacaayadi meel kasta way taala dacaayada hadii aad qaadatid oo aad tiraahid waxaas ay wax ka jiraan runtii waxa ruqsaan galaysa ama aan fiicnaanahaynin shacabka hamiyadaad ku lahayd maadaama oo tahay qof propaganda soo dhageysta ama ku tiro ku teen inagu waxaanu naahnaa xanta freeshka halkan qurbaha marka aynu joogno xan fresh ku haya qofkii wuxuu yahay ma ogid balse laakiin waxaad ka soo qaadaysaa wasladiisa xalaasha wad xaraan ka dhigaysaa dan marka waxaanu u bixinay xanta freeshka saynu wada ognahay farxiyo kaba yaray bariyaan xanta freeshka way ku badan tahay qurbaha siiba Mareykan Jarmal ha oranin Sweden ha oranin meel kasta Soomaali iskugu timaado Ingiriiska ha oranin xanta fresh way ka taagan tahay balse laakiin wadankii iyo xagaas bay direct wax la isku raada direct la isku weerara marka xanta fresh ka hadda soo maqashay ama aad soo dhageysatay waxa ay ku keeni kartaa ahmiyada aad ku leedahay shicibka aad ku leedahay baraha bulshada ama aad ku leedahay shacabiyada aad leedahay ama xaq faneed ha ka soo raacaan ama sawtahan magac codkaaga ha jeclaadaan inta kadib bal waxaan rabnaa inay soo wada daawano clipkan ay leedahay farxiyo kaba yare maxamed Saciid BK waxa la qaadatay lacag oo deena saas awgeed weeyaan bal aynu soo wada daawano clip waa kabta xaaj waxa iska leh fariintan walaalkay maxamed BK fariin ayaad noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan oo waliba anigu aan ugu horeeyo fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan maaragtay u dhageystay fariintaadi walaalkayo waxa jirta arrin markaad fanka ka bixaysay ayaan hore ka fanka bixaysay arrin waxa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoos isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahaayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sida caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystay oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK gaarsiya su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda publican kugu weydiiha insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo abtigay Axmed Beef marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BK inaad tiraahdid dar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo hadii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo
oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyno kulligan anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadoo lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysaa adoon dhibtoonan heysini ka soo baxa inaad tiraahay ee horto saas inaad tiraaha saxsanayd marka muhiimaddu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca hadduu jiro BKO inaad tiraahay dar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay weliba anoo kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato weliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyno kulligan anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala waynu soo wada taawanay waynu ka soo wada dharagnay wallahi runtii marka qaar waa iska yara fani hadalada farxiyo ka yar balse laakiin marka ay wuxuu tahay diin runtii diintu kaftan ma gasho mana aha wax lagu jees ama yani waxa qof kaftan ugu geynaysa ama aad ugu leedahay marka aad leedahay diinta islaamka yani inaad gashid marka qaar qofku hadii aanu qalbiyan aanay ka soo go'in marnaba wax macnaha la qaadayo maahan amalkii uu sameeysanayay marka qof dhan oo ilaahay dartii u tukanaya oo ilaahay dartii baan uga tagay ku yiri isagii Allah ayaa isxisaabanay laakiin ilaahay dartii ayaan uga tagay ku yiri ina aad tiraahid sida aad u jeesjeesad waliba tiraahid dadba meelaha xanta freeshka waxa la leeyahay wuxuu qaatay lacag noo sheeg lacagta hadii inta haytay xididkeedu horta diinta islaamka lacag ma gasho diinta islaamku way ka weyn tahay lacag adduun kasta waa tabcan kartaa gurigu ka dhistay sax haduu guri ka dhistay anagu ma ogin laakiin idinku bay isku fanaaniin isku og laakiin kaliyaata fanka waa waxa kaliyaata ee ka raacaya waa magac laakiin lacag kasta oo qaadatid 10,000 halka ka soo waxaan ku showga ku qaadatid 20,000 50,000 5,000 10,000 30,000 $100 ha noqotee marka soo qaata dhinaca kale ka baxaysa jeebku waa qalalayah marka haday lacag taraysa ama wax taraysa fanka waad u haysataa oo fanka in kugu filan waad haysataa oo maanta dad tiraayd waan showban waxaynay wax allaali wixii shaydaanku ku adeegsanayay oo dhan ama shaydaanka kabihiisa ahaa oo dhan baa kugu soo galay kugu soo xaroonaya sida darteed wada awoodi kartaa inaad lacag ka sameeysid hadii aad noqoto qof iska saasa waad iska fahmaysaa waxaan ku leeyahay marka in aad tiraahid diinta islaamka ay macaaneyd lacag ayaa lagu fangareynaya taa inta ka gasho taana ka biximaysa farxiyo kaba yaray bal hadalka iskugu noqo oo dib u soo shaandhe oo bal u bato micnaha waa lagu waaniyo waa sidii lagu waaninayay baad uga soo baxday fanka taa way qaadan karnaa laakiin waxa weeyaan waxaan ku leeyahay hadalada qaar iska soo shaandhe marka waxa tahay qof marka uu hadalka uu yiraahdaa uu gaarayo meel shisho ama meel dheer ku dhacayo markuu qofku sidaa yahayna waxa uu qurux badan ya in hadal uu qofku dadku qaataan oo looga qaateena uu soo bandhigo laakiin hadalka aad leedahay lacag baa lagu qaadanayaa dacwada islaamka lagu qaadanayaa lacag waxa halka inta dadka ka gasho xagga ka soo baxaysa maahan hadaa doonaysa inaad fanka ku sii waartid oo aad ilaa inta dhimanaysid aad ku sii jirtid kulli waadi ikhtiyaarka qof ikhtiyaarkii baa leeyahay waxana la yiraahdaa xabaaliyo ninkii lahaa loo kala tag يعني وما أنسد وباهانسا waxa weeye yani dacwadan iyo kuleeyahay meeshan kuleeyahay ka soo bax oo kuleeyahay xagan u soo bax maanta qabrigaaga gashidaya xasuusan doontaa adoran doontaa ilaahay oo mar labaad inooleysay ama igu yiri cili one chance si aan guto wixii aan dambi ka galay aan afinku weydiisto on Allah ku toobad keene marka inagoo dhan baa toobad wada baahan oo dhamaanteen toobad baynu wada baahanay oo dhamaanteen waxaynu wada baahanahay hanuun Allah oo waxaan wada baahanay Allah naxariistiisa ku jannada ku galo Allah inuu inaga dhigo marka hadalada qaar aad leedahay waa inaad ka fiirsataa Maxamed Saciid Biikeena wuxuu qaatay talaabo wanaagsan fanaaniinta dhanna ay ku dayan kartaan ma lagu dayan karo walaaladii haduu leeyahay ka soo baxa fanku waa naahuro waa naar baa lagu gelayaana waan ku raacsanahay midaas waxaan leeyahay fikirkiina iyo aragtidiina waa idin wax wad
nugula soo wadaagi kartaan aad baad ugu mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan maadaama waan ka cudur daaranayo inuu kilibku sii dhaaraado aanan doonahayn aan laakiin hadallo badan halkan iga soo riixayaan waxaan odhanayaa dhammaantiin fikirkiina waad kusoo dhiiban kartaan aad baan idin salaamayaa like badanna iska saara kilibkan maadaama wax lacag inagu taagnayn aynu isqacan qabanayno ya wayna ka salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu